waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye mujaahid jaamac ismaaciil shabeel sacabka sacabka. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan u mahadnaqayaa dadka soo gabagaabiyey xafladda qiimaha iyo qaayaha badan oo soo Axmed Muumin sheegay fadligeeda ay habluhu leeyihiin oo ku raacayo ku taageerayo Axmed Muumin sida quruxda badan ee loo soo agaasimay xafladda. waxaan u mahadnaqayaa guddiga ka soo shaqeeyay abaabulkeeda. waxaan u mahadnaqayaa xubnaha laamaha dibadda Londonka kuwa London gudaheedaba xubnaha ka yimid ee lagu soo shaqeeyay xafladda iyo lagu soo dhaweeyay. intaa markaa ka gudbo waxaan jeclahay inaan xusuusiyo dadka in ereyada digirulshada laba kaclaynta ereyadaasoo dhan aynu halkaa iska dhigno. hayaan baynu gelaynaa xisbiga kulmiye 2010kii markuu barnaamijka samaynayay. barnaamijka rag aniga iyo aan nahay waxyaabo badan bay lahayn ha lagu daro kastaa halayna waxaa ka mid ahay waxaan mushaharka shaqaalaha iyo askarta 300% baynu kordhinaynaa. ilaahay wuu og Axmed Siilaayo intuu fadhiistay inuu yaale ruuxayna berito fuli karayni haynoogu qorina meesha warbaad reelo dhigantahay waxayna berito fuli karay waynu fuli karaynaa warta ilaahay mahadii weeye 100% bay maraysaa iminka. waxaan soo rajaynaynaa oo aniga weli ay iga go'an tahay mushaharka ciidamada iyo shaqaaluhu 300% baa kusii darayaa iminka 4% inuu noqdo haddii alla yidhaaho. macquul maaha askariga xadka jooga ee dalka difaacaya $100 buu qaadanaya carruurtiina Hargeysa joogto guri kiraa ay ku jirto waxbarashadii doolar laga doonayo wax macquula maaha. askarigaas wuu dadaalaya waddanka laftiisa iyo maalkiisa gebigiisaba wuu fiday. waa in waddanku u abaalgudaa waddankuna kaalintiisa ka soo baxaa dowrkiisa ka soo baxaa. dalkeena dhaqaale la'aani ma jirto laakiin annagu markii hore wixii 2010kii ka horreeyey dee wuxuu ahaa mal-awaal waxyagu ahaa. laakiin iminka tijaabadii baanu ka baxnay aragnay baanu ka baxnay. miisaaniyaddii 740 ahayd baa iminka 360 maraysa. waxaan nuugsanaynaa iminka teeramka dambe 360kaas inay 1 bilyan galaan 5 sanadood soo socota. waana muuqataa halkii uu ka soo baxay dakhliga simple because 3 cishaan joognay aniga iyo Maxamed Kaahir iyo Adsooba 3 habeen baan loo hoynay. waraaqii baan sugayay juwaladii $120 lacag gaarayso cashuura ayaa laga qaaday. markaan Hargeysa joogo sanadka dhan cashuurta laga qaadaa dee wax yar bay dheertay 3 cisho waa laga qaadaa Adsooba. waxaan ku tusaysaa cashuur badan ay loo baaqatay indhii baan kala furnay. wax badan baa loo kordhay dakhligu si dheer u tegi karaya. maxaa laydinka rabaa haddaba idinka baahan idinku nim sidaa waxuu sheegayay kulmiya marka dambe inuu dhaqaalaystuhu hanti samaystaa rajeynayna oo uu isagu shirkada samaysto oo business yeesho oo uga soo baxo dhaqaalihiisu oo uu kafaalo qaato. waxaanu idinka rabnaa hayaankaa la gelayo ee iminka inoo bilaabmaya haddii alla yidhaahdo 2017 bushkii u dambeeyey inaanu siisaan inaad ku tala gashaan bushka maanta la siinaysaan ama baritaanka maanta la siinaysaan. dalka qurbo joog baa dhistay qaybta u weyn bay ka qaadasay dalka dhismihiisa qurbo joogta ilaa yowmana haada
kala badh bay qoysaska waddanka ku nool qurbajoogta ay masruuftaan goor baa laga baxaya qurbajoogta oo ka maarmayaan dadka dalka jooga inay isku filaadaan iyagu oo ay ka maarmaan oo kuwana marka halkala joogaan ay wax dhigtaan oo ay laga kaaftoomo waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaa ilaahay la kaashanaynaa teeramka dambe inay taasi suurto gasho oo dhalinyaradu shaqalaanta laga cabanaya dalka shaqalaani ma taalo laakiin arrinkuunba oo meesha ka maqan arrinkuunbaa ka maqan dadka u soo shaqanta maanta hargeysa ee joogay ee ka shaqeynaya hargeysa iyo burcee ajaanibka ma malayn karay caqligiinu waxaan idinka rabnaa waxaa weeye in badan baa soo tacabteen maanta inaad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan kulmiye haddaa u tirinayseen oo lahaydeen waa dowladdii waana lagu idhahdaa waa dowladdii lacagtii doonaya waa maxay soo kuwa dowladda markay macaadka ahayd markii dowladda lagu ama lacagdooda doonaya waryaalehe habliyo inama waxaan idin sheegaya gaaladii lacagta doorshada bixin jirta waa tii lagaga baxday cimrigiisa allaa rajiya caafimaadna allaha siiya axmed maxamuud siilaayo 8 milyan ay bixin jireen badmadii deelhaa anagaa bixinaynagu wuu bixiyey lacagta intii dambana wuu halkaasay u taala annagu waxaynu annaga dadka iga dib ugu noqonayna madaxweyne aduu taasuu inaga damba baashaas yay dib inooga dhicin ballantaasaa loo taala sidaa idinku soo noqonay waa sidaa haday gaalada lacagtii laga heli lahaa waanu qisada waan iskaga yar noqonayn oo iska baarbaaran lahay laakiin maanta doorashada inay qabsoonto sidaa darteed waan idinku soo noqon marka waxaan idinka rabnaa waxaa weeye waa tii 2010 oo kale kaalintii 2010 qaadatee kaalinteed baan idinka fadhiyo maanta idinkama fadhiyo intii lagu qaybiyey intaa laydinku qaybiyey times 5 qolo waleyba ood garanaysa inta lagu qaybiyey intaa lagu qaybiyey qolo waleyba times 5 intaasaanu kaa doonayna tu kalena way jirtaa anigoo markii ugu horreysay baad horta qurbaa weliba yurubaan imaada waxaa la wareegin jiray inuu bashkeen lacag baa bixin jiray calanka welimakii lacagta bixin welimakii kale idin kala garan weye war maanta aanu idin kala garano oo ninka qaanaanka xisbiga bixiyaya nin kale ala kala garto si taa loo helana waa in liisaskiina la helaa oo dee liisaskiina la helaa sidaan idin kala garanayn haddii kale intada dumarow xisbiga idinku idin baahaya ragal hurdaa waa hurdaan waxay u baahanya in xoog iyo xoog loo toosiyo waan idinku dheeriyay hadalka waxaa leeyahay guusha hayna siiyo ilaahay haynoo sakhiro qorshaha iminka xisbigu uu dabacsan yahay ee 5 sano soo socda himilada higsiga ilaahay haynoo sakhiro ilaahay haynoo fududeeyo ilaahay ha ka dhigo dalkeena kii horumar iyo barwaaqo gaara caasimadeena sidaa caasimadda London ilaahay haynagu gargaaro inay noqoto mid bilasiigaa oo sidaa caasimadda London oo kale aynu ka dhigi karaynaaye waynu ka dhigi karnaa 9 bilood bay ku dhashay kuwa halkan ka dhigi ilana 9 kaasuu baynu ku dhalan ilaahay haynagu gargaaro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu